musharax maxamuud khaliif xasan jabiye oo taagan xilka madaxtinimo ee Puntland sanadka 2019 ayaa maanta waxa uu booqasho ku tagay xarunta agoomaha ee Alnuur ee degmada Baran iyadoona halkaas ay si diiran ugu soo dhaweeyeen maamulka macallimiinta iyo ardayda xaruntaasi musharax maxamuud khaliif xasan jabiye ayaa waxa ugu deeqay xarunta agoomaha ee Alnuur $5,000 Mareykanka oo musharax ugu talagalay in lagu kabo baahiyaha xaruntaasi xaruntan agoonta ee magaalada Baran al-Harameyn al-Nuur runtii maanta booqashada ku nimaano waxay noo tahay fursad qaali ah ee noo tahay ana wakaafilul yatiimi ka haatayni labada farood ba xariiriyay nabigu qofka agoonka kafaalo qaada aniga qofkaasi jannada saasan ku noqonaynaa buu yiri rasuulka kaleey salaatu wasalaam marka runtii inta gacanta ku haysa iyo inta kafaalo qaaday intaba waan ugu hambalyeynaya waxa boordan ahaan lahayd waan la qadayn lahayn waan la cuntayn lahayn waan dhex fariisan lahayn laakiin maadaama ay hadda aan lahayn boordan ama meel xarun ay ka cuntayaan wax kale ugu bedelin doonaa lacag $5,000 ah baan xaruntan maanta ugu deeqaynaa hadii la hayno marka insha Allah sidoo kale musharax maxamuud khaliif xasan jabiye ayaa waxa uu booqasho ku tagay xarunta agoomaha ee Al-Rahma ee degmada Baran iyadoona halkaas ay si diiran ugu soo dhaweeyeen maamulka macallimiinta iyo ardayda xaruntaasi waxaana musharax maxamuud khaliif xasan jabiye uu ugu deeqay $5,000 Mareykanka xarunta agoomaha ee Al-Rahma lacagtaas oo ugu talagalay musharaxu in wax laga qabto baahiyaha haysta xaruntaasi anigu sida hadda la socotaan musharax baan ahay waxaan u tartamayaa xilka madaxweynenimada haddii isbedelka aan raadinayno ilaahay uu qadaro uu suurto gasho waxaan muhiimadda koowaad siin doonaa da'yarta danyarta ayaan muhiimadda ugu koowaad siin doonaa taas ayaa waxay muujin kartaa in aynu doonayno isbedelkeenu waa inuu marka halkaa ka soo bilowmaa dalkaan maraynay waxaana safarkayga ugu magac darnay talo iyo tabasho inaan talooyinkana dadka bulshada ka dhigaysano tabashooyinkoodana aanu dhigaysano oo aanu aragno booqashada gaaban aan ku waan jeclaan lahaa dudee boordan lahaan lahaa inaan ardada la qadayn lahaa dhex fadhiisan lahaa laakiin maadaama uusan lahayn waxaan qadadoodii ugu dhiibayaa maamulka $5,000 oo aan ugu talagalay sooriyadoodii sidoo kale musharax maxamuud khaliif xasan ayaa waxa uu booqday cisbitaalka guud ee degmada Baran waxaana xarunta cisbitaalka uu kulan kula qaatay maamulka cisbitaalkaasi waxa sidoo kale musharaxu uu mid u booqday qaybaha uu ka kooban yahay cisbitaalkaasi iyo bukaanada jiifa intaas kadib musharaxa ayaa waxa uu booqday xarunta beeg ee korontada degmada Baran waxaana xaruntaas kulan kula qaatay maamulka xaruntaasi isagoo sidoo kalena mid u booqday qaybaha ay ka kooban tahay xaruntani ugu dambeyntiina musharax jabiye ayaa waxa uu booqday xarunta jaamacadda Maakhir ee degmada Baran waxaana halkaas kulan kula qaatay maamulka jaamacadda iyo macallimiinta wax ka dhiga jaamacaddaasi sidoo kale musharax jabiye ayaa waxa uu mid u booqday qaybaha uu ka kooban yahay dhismaha jaamacadda Maakhir ee degmada Baran xasan cismaan xasan TV-ga idaacadda dowladda Puntland Baran